بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaan qaada dhigi doonaa hadii ilaahay yiraahdo soo gabagabeey doonaa insha Allah barnaamijyadii aan ugu magac daray waxyaabaha ugu muhiimsan diinta islaamka oo ka kooban 18 arrimood 18 kaas arrimood waxa weeyaan 8 arrimood oo ilaahay uu jecel yahay subhanahu jalla wa ala iyo 10 arrimood oo ilaahay uu neceb yahay subhanahu jalla wa ala markaan leenahay jacayl iyo nacayb ilaahay uu neceb yahay oo jecel yahay macnaheedu ayaan loo fahmin in maxay ahaato sidaas ay tahay waxa weeyaan Allah wax walba asaga abuuray Allahu khaliq kulli shay ilaahi baa yiri subhanahu jalla wa ala wax walba asaga abuuray Allah subhanahu jalla wa ala wax kaliya iska iman kara ma jiraan marka inaga ayuu nala neceb yahay marka ilaahay waxa laga yaabaa dadka qaar ay ku fikiraan cadaab muxuu ilaahay abuuray maxay shaydaan ilaahay muxuu abuuray waxaan noocaas waxaas wax adika waaweyn weeyaan waxa weeyaan cilmiga Allah ay ku salaysan yihiin waxyaabaha noocaas hadii ay sajiri lahayn waxyaabahaas waxa imaalaheed in cilmiga ilaahay nusqaan inuu yahay taasna ma dhacayso Allah subhanahu jalla wa ala cilmigiisu taam weeyaan marka sidaas weeyaan saas loo fahmayaa macnaheedu waxa weeyaan muhiim ah inaad ku fikirto waxyaabaha noocaas waxa laga rabaa inaad samayso waxyaabaha laga rabo inaad samayso aadna ka harto waxyaabaha laga reebayo waa 8 shay ilaahay jecel yahay iyo 10 shay oo ilaahay uu kula rabin inaad samayso la soco marka waxa weeyaan taqwa ugu horeysa taqwa waxaan soo sheegnay marar fara badan ka sheekaynay waa amaasha aan samayno dhamaantood weeyaan runtii sida la dhihi karo haday noqoto maxay ahaato iimaanka iyo hadii ay noqoto arkaanul islaam waxay soo hoosgelayaan baabu taqwa ay soo hoosgelayaan sidoo kale to muxsiniin ayaa qaybta labaad noqonaysa ilaahay uu jecel yahay muxsiniinta mutaqiinta ilaahay uu jecel yahay samafalayaal waxa weeyaan muxsin camalka ugu wanaagsan ee samay karta weeyaan ihsaankan ugu weynna waxa weeyaan Allah subhanahu jalla wa ala oo si macnaha xad dhaaf u caabudo oo xuduud lahayn oo aad u qiimo badan oo aad u sharaf badan iyo waaridka oo ihsaan fasho oo baar u noqoto labada shay ilaahay si waadax ah ayuu quraanka uga hadlay meel fara badan oo kale tana way ka hadlaysaa ihsaanka de horaan u soo qaadanay 10 ku soo qaadanay ihsaanku waxa weeyaan camalka aad samaynayso inaad meesha ugu sarreysa gaarsiiso weeyaan muqsidiina ilaahay jecel yahay subhanahu jalla wa ala kuwa cadaalada sameeya tala saarashu jecel yahay Allah kuwa tala saarta kuwa toobad keena ayuu ilaahay jecel yahay kuwa nadaafada ku dadaala ayuu jecel yahay kuwa samra ayuu jecel yahay Allah subhanahu jalla wa ala kuwa wadada ilaahay ku dagaalama iyagoo safa oo maxay ahayd khilaaf aan lahayn iyo tafaakhur iyo fan ayuu ilaahay jecel yahay subhanahu jalla wa ala sideeda shay markii laga helo wax weyn oo ilaahay la hortagtad haysata sidoo kale to 10 shay ayuu ilaahay nala neceb yahay subhanahu jalla wa ala waa gaalnimo maxay ahayd gaalnimadaas oo 10 ku soo qaado doona hadii ilaahay yiraahdo kuwa xadgudubka sameeya qofka kibra oo maxay ahayd qofka khiyaanada badan oo khiyaanada sameeya faanka iyo isla weynida fasaadka oo dhiig oo la daadsho kaleeto maxay ahayd farixiinta oo kuwa farfarxa iska badbadiyo kaleeto maxay ahayd daalimiinta oo mabda aad u culus runtii arrin aad u culus ah oo shirku waxta uu ku jiro dembiga aan oo shirku waxta uu ku jiro dembigaas musrifka kan oo maxay ahayd israafka sameeya oo xadgudubka sameeya kibirka iyo isla weynida sidoo kaleeto waxaad arkaysaa 8 shay inta badan way isku xiran yihiin 10 shayna way isku xiran yihiin misana haddana way isku xiran yihiin kulligoodba sida loo kala saaraa way adagtaa waa silsilad isku xiran oo midba mid ay ku xiran tahay saas isugu xiran yihiin weeyaan maanta waxaan ka hadlaa hadii ilaahay yiraahdo inta ma wada naqaan runtii waxyaabaha noocaana oo ilaahay nala jecel yahay subhanahu jalla wa ala waan soo koobay 10 fara badanna waan uga hadlay tii aad samaysana waa ta kala weeyaan waa isku xiran yihiin waa silsilad saas isugu rakiban weeyaan maanta waxaan bilaabaa hadii ilaahay yiraahdo inaan soo aruuriyo dhamaantood gaalnimo ayaan ka bilaabaa hadii Allah idmo waxaan gaalnimadan ka bilaabaynaa gaalnimo maxay tahay quraanku muxuu u yaqaanaa gaalnimo quraanka dhexdiisa waxay ku jirtaa 500 oo aayadood iyo wama ziyaada 500 iyo wax ka siyaada ayaa ka hadlaya aayado quraanka lagu xusay marka 500 oo aayadood oo quraanka wax lagu xusay waa dareemi kartaa si culus tahay waa arrin culus weeyaan laakiin gaalnimada sideen u fahmaynaa Allah subhanahu jalla wa ala aayada 150 suurada afraad suura nisa aayada 150 wuxuu leeyahay إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أي الله سبحانه جل وعلا ولا واحد قاتا أن كو إلهي كو كفرية رسولشيسا كو كفرية دوني إني كقيبيان إلهي رسولشيسا دوني إني قيب رميان قيب إنكران
wadana doonaya halkaas inay ka samaystaan ay wax ku dhibaateeyaan ay ku baadiyayaan dadka kuwaas ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay yihiin kufaarta xaqiiqada ah ayuu ilaahay ku tilmaamay walciyaadu billah halis weeyaan marka tan ku cad xaqnimada gaalnimada waxa weeye waxa la yidhaahdo mulxidiinta weeyaan qofka ilaahay inkira subxaanahu jalla wacala rusushiisa inkira hadduu guud ahaan inkiro allah iyo rusushiisaba waa waxaan naqaano atheista la yidhaahdo weeyaan oo mulxidka la yidhaahdo haddii qayb ka mida uu inkirana waa la mid oo waxaa farqiyo kama duwana uu allah inkiro rusushana uu aqbalo ama uu rususha qaar aqbalo qaarna uu maxayto diido ama ilaahay iyo rusushiisa uu kala qaybiyo uu yidhaahdo qaybtaana waa sax qaybtaana waa qaldan tahay taas waxaa weeyaan halis weeyaan runtii waa gaalnimada xaqa ah ilaahay leeyahay laakiin gaalnimadu tiradii ka badatay aad ayay u tiro badan tahay waxaa soo gelaya nimcatul kufriyaa soo gelaya waddada ilaahay oo dadka laga jeediyaa soo gelaya maxay ahaato kaafir xasadku xataa kaafirnimada soo gelaya maxay ahaato wax tiro badan gaalnimada soo gelaya marka 500 oo aayadood xabad walba lama dul istaagi karo laakiin in general waxaa muhiima kuwa xaqnimada uu quraanku ku sheegay inaan ka qabsano ayaa muhiima rususha ilaahay aan kirin ilaahayna ha inkirin subxaanahu jalla wacala nimcada ilaahay ku siiyana ha qarinin oo ha inkirin kufriguna macnihiisu waxa weeye wax la qariyo weeyaan ama la inkiro la diido labadaas macnuu leeyahay kufriga macnihiisu waa sidaas weeyaan marka sidaasaan kusoo idlaynayaa kufriga waxaan gelayaa qaybta ku xigta oo ah ظلمك وكناها ان ظلمك waxa weeyaan kan ugu weynu inna shirka la dhulmun cadiim ilaahay leeyahay subhanahu jalla wa ala ظلمkan ugu weyn waxa weeyaan shirkiga weeyaan qofka mushriga ah waa qof daalima weeyaan ilaahay ku dulmiyay oo dhulm ku sameeyay sababta ilaahay ma mudna in lagu shirki loo sameeyo subhanahu jalla wa ala ظلمkuna macnuhu waxa weeyaan qof wax laga reebay ama maxayaato khatar u keenaya ku dhaca oo si khalada wax u sameeya ayaa dhulm la yiraahdaa waxa kale oo dhulm noqonaya shay si gardarra meel looga qaado oo meel aan munaasabkeeda hin la dejiyo ayadoo dhulum ay noqonaysaa mesela qofaad xaqiisi ka qaaday xaq kala siiday ama wax laga reebay oo laga mamnuucay ayaad samaysay dhulum weeyaan taas dhulum la yiraahdaa Allah subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku xusayaa aadam iyo xaawo inay dhulum sameeyeen oo maxayatu geed laga reebay ilaahay oo ka mamnuucay ay cuneen markaasna ay dhulum noqotay oo yiri ilaahay fatakuna min adh-dhalimin hadda geedkaas cuntaan markiina ay geedka cuneen ay yiraahdeen rabbana dhalamna anfusana ay yiraahdeen markaas ilaahay uu naftanadii aan dulminay oo macnaha xad gudubaan sameeynay wixii laga reebay ayaan sameeynay idan dhulumku 300 oo aayadood in ka badan ayaa quraanka dhexdiisa ku soo aroortay wax weyn weeyaan dhulumku waana halis weeyaan waxaad ogaataan ummadihi naga horreeyay dhamaantood aan dhihi karaa waxyaabaha lagu hoojiyay ugu waaweyn waxay ahaayeen fasaad iyo dhulum fasaadun ognahay in wax la khiyaano dadkii la dilo dhigii la daadsho maxay ahaato miisaankii la qaldo qish iyo balaayo iyo laqdabo la sameeyo iyo dhulumkii oo ah cadaalad darro iyo waxay mar kale turjumaysaa qaybtaan ay kasoo horjeedaa sidaad arkaysaan dhulumku wuxuu kasoo horjeedaa cadaaladii iyo ixsaankii kasoo horjeedaa fasaadkuna wuxuu kasoo horjeedaa taqwadii kasoo horjeedaa marka waxaad dareemaysaa inay isku xiran yihiin oo silsilad isku xiran ay yihiin oo sidaa isugu xiran على كل حال ظلمك إلهي وممنوعي ظالمينتنا وحيابها ظلمكنا وحيابها النار تلقوا قالوا وبدن سجى كفرجوا كواس ويان مركا ظلمك أنا سكيل علينا ولا شرفت له أن ظلمك وحكلوا سوقلية محياته إيش جان ربضوا كله حتى ظلمك يسوق الشاة صوت حوالي إسلامات ويوقف بني آدم هتكون قاعدنا ساخيانه يوم حياته الغضبة تكون قاعدنا ساخيانه ويسوقلي سايدنا مركا وحيابها أنا waxyaabo isku xiran oo runtii aan la kala sooci karin weeyaan idan dhulumku halis weeyaan waxyaabaha lagu hoojiyo meel hadii dhulum ku bato fasaadna oo ku bato laga sugi maayo wanaag absolutely wanaag ka imaan maayo marka qof walba iska ilaali dhulum inaad samayso ama aad fasaad samaydo ama aad gaalnimo samaydo ama aad maxayto khiyaano samaydo waxyaabo noocaas ka ilaali waxay ka soo horjeedaan acmaal saalihaadkaas ay ka soo horjeedaan waxaan gelayaa qaybta ku xigta hadii Ilaahay yiraahdo oo noqonaya musrif muxuu u yaqaanaa quraanku musrif la soco musrif quraanku wuxuu u yaqaanaa in badan oo quraanka ka hadlaysa meel fara badan oo Ilaahay ka hadlaya Allah subhanahu wa ta'ala musrif wuxuu ku tilmaamay fir'aun ayuu ku tilmaamay musrif inuu ahay maxay ahaato mufsadna inuu ahay ku tilmaamay labada shayba uu kulansaday
kaafirna dabcan wuu ahaayo ilaahay ma ogoleen subxaanahu jala wacalaa marka musrifo maxaad ahayd allah subxaanahu jala wacalaa qur-aanka wuxuu ku leeyahay meelo fara badan yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin wakuluu washrabuu walaa tusrifuu inahu laa yuxibu almusrifiin bani aadanow lebis fiican qaataa markaad masaajidka u socotaan cabba oo cuna hana xadgudbinina ilaahay ma jecla kuwa israafka sameeye marka israafka waxa weeyaan cuntaduu ka dhashaa wuxuu ka dhashaa oo kaleeto sadaqada markaad bixinayso walaa tusrifuu inahu laa yuxibu وآتوا حقه يوم حساده أيضا دير سورة أنعام كجرته سورة لحاد أيضا بقول فرتني كو مركي حولها أتحشوا بيرت كوسو بحضو كلاتو كبحيو إلهي لي حقي كبحية الذي كلها هاي ومعنى زكدية هنا حد قد بنينا إلهي ما جعل كو حد قد بيه إذا وحي مرة وربا أي كله ده هي إسرافكو حولها أي كله ده هي إن حياته أيضا سورة فرقان كجرت صدق الإلهي وحكوليه هي والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما kuwa markay wax bixinayaan aan israaf sameynaynin oo wax siyaada aan bixinaynin wixii aan yareynaynin oo bakhayltinimo sameynaynin oo qofkii wax yar aan siinaynin kuwaas dhexdhexaadka ka dhigta kuwaas weeyaan oo cibaadu raxmaan allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu ku tilmaamay marka israafku inta ugu badan wuxuu soo galaa maxay ahaato waxyaabaha noocaas ayuu soo galaa markii sadaqa la bixinayo kaleeto in maxay ahaato aan siyaada la bixin ayuu soo galaa inta ugu badan shayga inaan macnaha si xad dhaafa loo isticmaalin xataa cuntada inaan si saa'ida loo cunin ayaa ayadan laga arkayaa oo qofku loo baahan yahay cunto yar oo macquula inuu cuno haddii kaleeto israaf ay noqonaysaa marka sidaas weeyaan asagana ilaahay ma jecla subxaanahu jala wacalaa wa ina almusrifiina hum asxaabu naar ayuu ilahay leeyahay meeshaan fiir cajiibka waa halis weeyaan waxyaabaha lagu naar muto weeyaan waxyaabaha aan ka hadlaynay oo ilaahay uusan jeclayn subxaanahu jala wacalaa dhammaantoodba waa sidaas weeyaan waxyaabaha lagu naar gala weeyaan marka intaas ayaa waxaan kusii darayaa intaas khiyaanada oo kaleeto khiyaanada ilaahay ma ogola subxaanahu jala wacalaa xadgudubka waan kasoo hadalnay oo muctadiinta waan kasoo hadalnay musrifiintaas waan kasoo hadalnay iyaga naftirkooda xataa musrifiinta waxaa kamid a dadka oo maxay ahaato galmada sharci darrada sameeyo oo kaleeto meeshii qowmuluud ilahay wuxuu ku tilmaamay ainakum lataatuuna rijaala shahwatan min duuni nisaa bal antum qowmun musrifuun oo kaleeto raggii aadiin intay dumarkii ka tageen marka musrifiinay noqdeen oo meeshii shayga loogu talagalay meelaan ahaynay la aadeen marka israafka waxyaabaa noocaasa soo gelaya sidoo kaleeto kibirka ilaahay ma ogola subxaanahu jala wacalaa kibirna waa naqaanaa fasir badan uma baahna dembiilaha dembiyo idil oo shirka uu ku jiro xataa isagana ilaahay ma ogola subxaanahu jala wacalaa wax walba oo ilaahay kitaabkiisa lagaga mamnuucay inaad ka harta weeyaan oo aadan ku dhiiran weeyaan sidoo kaleeto farixiinta isqaad qaada oo waxyaabaa noocaasa ilaahay ma jecla isagana aayad quraan weeyaan fasaadka waan ka hadalnay fasaadku halis weeyaan runtii santaagii kibirka muqtaal faquurka ah ilaahay ma jecla subxaanahu jala wacalaa khiyaanada ilaahay ma jecla subxaanahu jala wacalaa calaa kulli xaal waxaan isleeyahay anigu madhabkayga saxda ahay waa kan ahaa wax walba oon kala imaan karo haddii ilaahay yidhaahdo inaan kala imaadaan jeclahay 8 shay 10 shayna wax walba oon ka hari karo oon iska reebtoomi karo inaan ka reebtoomo ayaan isku dayaya haddii ilaahay yidhaahdo qof walbana sidaasaan kula talinayaa waxaanuna fasir fara badan oo baahna ijtihaad fara badan oo baahna wax iska waadaxa oo caam ah oo risaalo caam ah oo rasuul walba ilaahay uu la soo diro weeyaan rasuul walba sidaas uu keenayay waxaas uu keenayay intaas haddaad iska ilaaliso waxba badbaadi haddaad ku dhacdo laakiin halisaad ku dhacday ilaahay naga badbaadiyo ilaahayna nagu anfaco intaas ayaan kusoo idleeyey wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh